السلام عليكم. magacayga waa Mawlid Kuban. waxaa idin sharaxaa BGP Border Gateway Protocol oo aan hore ugu soo sharaxay luqadda Ingiriiska. waxaa idinku sharaxay luqadda Soomaaliga. BGP-ga hore u soo sharaxay waa ka duwan yahay kan aan hadda sharixi doono. marka waxaan sameynaynaa configuration-ka bilaabanaa. waxaan soo qaadanaa laba router 2 labadan router aan ku sameynayna. kii ka horreeyay waa ka duwanaa, wuxuu ahay router iyo switch iyo computer aan ku sameeyay. marka waxaan isticmaalaa oo kaliya laba router. kaas oo ka fudud sidii hore aan sameynaynay iyo configuration-kii hore ka fudud. kan waxaan ka dhigaynaa router 1. kan waxaan ka dhigaynaa router 2. IP address aan soo sameysanaynaa 192.168.10.1. gudagalaynaa configuration-kan gudagalaynaa. node no enable config terminal host name R1 interface fast internet 0/0 IP address 192.168.10.1 subnet mask 225.225.0 no shutdown. exit. okay waxaa aadayna haddana routerka kale. routerka kale asigana configure garan ku sameynaynaa. node enable the config terminal host R2 icon interface fast internet 0/0 IP address 192.168.10.2 subnet mask 225.0 no shut. exit. aan tegayna marka labada computer aan fiirinayna inay isgaari karayaan. pinkan lenahay 192.168.10.1 isgaarayaan. kan haddaan soo pin karaynana ping 192.168.10.2 isgaarayaan. sigana waxaan tegaynaa marka
PGP aan configuration sameynaa. Config terminal router PGP autonomous system oo sameynaa. waxaan soo qaadanaynaa saddexdaas number hore. saddexdaas number aan soo qaadanaynaa. neighbor aan dhahaynaa 192.168.10.2 remotaas aan leenahay. maadaama kan uu ahay 3 4 oo noqonaa kaasna 4 aan ka dhigaynaa. good okay waxaan tegaynaa kii kalaan tegaynaa. PGP autonomous system 4 aan ka dhigaynaa. diyaar 4 ah neighbor aan dhahaynaa 192.168.10.1 remotaas aan leenahay. autonomous systemkiisa waxaa 3 ah. way soo heleen waa kana adjustmentkiisa. kana adjustmentkiisa kana adjustmentkiisa isagana show IP PGP summary summarygiisa waa kana meesha uu maray iyo inta ay ugu tagay meesha. message receiverkiisa iyo message senderkiisa distancegiisa iyo show PGP summary kana distance iyo wixii uu meesha maray. waa dhihi karaa neighborkaaga intaas waa dhihi karaa iyo sida uu maray iyo show IP waa dhihi karaa laakiin information badan oo ma siinaa. show IP PGP
PGP neighbor haddaan dhaho meesha dhan u buuxinaa kasaan ujeeda information badan oo sameynaa marka waxaa dhigi kara show IP root wadada umre table root direct connected waaye okay show IP protocol protocolka waxoogaa information na siinaa fiican marka information fiican oo na siinaa wakana autonomous systemkiisa wakana neighborkiisa wakana addresska distancegiisana wakana last update oo sameyna wakana kana show IP protocol wakana asagana waxaa waaye autonomous systemkiisa waxaa waaye 6554 neighborkiisa waxaa waaye 192.168.10.1 distancegiisa waa 20 external last update wakana local marka waxaan rajeynaa cashirkaaniti inuu ka fududyahay kii hore aan hore u sameeyey oo ahay PGP protocol oo configuration different way u sameeyey ama si kale oo ka duwan insaan oo sameeyey kaas wuxuu ahay sida hore kugu soo sheegay laba router iyo laba switch iyo computer kan laakiin laba router oo kaliya ku sameeyey si aan idinkaga fududeeyo macnaha guudna u fahamtiin inta istaan soo marna waxa waaye waa very easy marka waxaan rajeynaa in wax walba ay kala yihiin marka intaan dib u kulmi doono waxaa idin leeyahay walaalkiin Mawlid Kuban na iga iloobina subscribe-ka share-ka like-ka comment-ka wixii daabta ama shakiya ama faham weysana comment-ga igu reeb ama email address-kayga mawlidkuba@gmail.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.